jeednaa inay Soomaalidu ka waantoobaan inay weeraraan masjid loo dhisay in Allah keligii lagu caabudo, iskana jiraan in been lagu dagaalgeliyo u soo jiidaysa carada Allah. dadkii Makriga aasaasay musiibo ayuu Allah ku riday, waxayna u qaybsameen qayb la dilay, kuwa jirro xun ku dhacday iyo kuwa bara sida aan ku sheegnay maqaalkii aan ugu magac darnay xaqiiqada arrinta Xawaadley. arrintu waxay u dhaxaysay dad qaraaba oo ku kala duwanaaday caqiido, una qaybsamay qolo raacday caqiidada saxda ee islaamku farayo iyo kuwa ku dhagan caadooyinkii hore. waxaa kale oo aan sheegnay in qolyaha difaacayay caadooyinkii hore ay dhagar soo maleegeen si ay kuwa caadooyinkaas ka tegay magaalada uga bixiyaan, masjidka iyo madarasadana uga dumiyaan, taasoo ahayd inay inta wiil yar dileen kadibna aabihii ku tuureen inuu dilay wiilkiisa. waxaan markaas sheegnay in makriga cidda soo maleegtay uu Ilaahay adduunka ku soo saari karo, makriga xunna uu ehelkiisa keliya baabi'inayo oo ku laabanayo. walaa yaxiiqu lmakru sayyi'u ilaa biahlih. haddaba waxaa dhacay arrimaha aan halkan ku xusi doonno oo muujinaya sida uu Ilaahay u soo saaray una ciqaabay dadkii makrigaa soo abaabulay iyo kuwii gacanta ka geystayba. muujinta arrintaas waxaan uga jeednaa inay Soomaalidu ka waantoobaan inay weeraraan masjid loo dhisay in Allah keligii lagu caabudo, iskana jiraan in been lagu dagaalgeliyo u soo jiidaysa carada Allah. dadkii Makriga aasaasay musiibo ayuu Allah ku riday, waxayna u qaybsameen qayb la dilay, kuwa jirro xun ku dhacday iyo kuwa barakacay. arrimaha dhacayna waxaa ugu waaweyn kuwan soo socda. 1. ninka la yiraahdo Yaro Cabdulaahi Cumar oo ahaa ninkii madarasada gubay, sidoo kale gubay masaaxiftii Qur'aanka ee masjidka iyo kursigii macalinka madarasada, waxaa bararay caloosha, waxa uuna yaalaa isbitaal ku yaala magaalada Jowhar. 2. Cabdiqaadir Cali Cabdulaahi oo loo yaqaano Cabdiqaadir Iishow, makriga ayuu wax ka maleegay, masjidkana wax ka dumiyey. waxaa gurigiisa kala baxay rag hubaysan wayna dileen. 3. Cabdiqaadir Mahdi Geelle oo loo yaqaano Qaaday wuxuu haystay qori, shacabkana wuxuu amrayay inay masjidka iyo madarasada dumiyaan. isagana waxaa dilay qabiilka iyagoo ku eedaynaya inuu ka dambeeyey ninkii la dilay ee Cabdiqaadir Cali Cabdulaahi, Cabdiqaadir Iishow. 4. Raxme Maxamed Liibaan oo alalaasaysay ama carab dhabaysay markii ay socotay duminta masjidka, wiil ay ayeeyo u tahay ayaa lagu riday webiga. wiilkaas oo ku fil ahaa wiilkii arrinta been abuurka ay ka sameeyeen ee Cabdiqaadir Axmed Muudey. 5. Farxiyo Xasan Muudey, Raxme Cali Cismaan iyo gabar kale iyo wiil kale. 4 qof waxay kharashka ka taageerayeen dadka sharta waday ee makriga sameynayay, waxayna deganaayeen Sacuudiga. dhammaantoodna waxay ku dhinteen koronto oo gurigii ayaa ku gubtay. 6. Aamina Mahad Xabad oo ka mid ahayd dadkii ka qayb qaatay duminta masjidka way waalatay, waxayna ku jirtaa xaalad adag. dadka barakacay qaar waxay u barakaceen Xamar, qaarna bariga webiga Shabeelle. dadkaas waxaa ka mid ah: 1. Gudoomiyihii Xawaadley oo loo yaqaano Cali Atuuyo. 2. Maxamed Iyow. 3. Muriidi Muudey Shamcuun. 4. Rooble Maxaad Jurus. 5. Maxamed Cabdiqaadir Wecelow. ilaa iyo haddana ma istaagin barakicii dadweynaha reer Xawaadley. intaas markii ay dhacday way soo hadleen, iyaga oo ka shallaynaya waxa dhacay, waxayna keeneen qayb ka mid ah alaabtii masjidka. waxaana masjidka weyn ee Xawaadley ka istaagay Maxamed Xamarow oo loo yaqaano Ow Xamari. waxa uuna yidhi, nimankan waan ku gardaroonnay, taana waxaa ka sii weyn inaan ku xadgudubnay oo duminay masjidkii Allah iyo madarasadiisii. waxa nagu dhacayna waa musiibadii arrintaas ka dhalatay ee aan Allah u toobad keenno, nimankaana aan cafis weydiisanno, haddii kale dhibkaan naga hari maayo. dadow arrintaas ha lagu cibro qaato. tanna waa murti yar oo arrintaa ku saabsan oo loogu magac daray baarqab laysma moodo. war haddaad barwaaqada hesho nabad lagu buuxsho,
war haddaad barwaaqada hesho nabad laguu buuxsho baarqable isma moodiyo jabbaar baarka loo firaye lama boobo aadmiga nimaan shayna kaa bi'ine inuu boqorku kaa adag yahaa laysbaraa abide inuu kibirku beelaha nabdoonbaasu noqonaayo inuu kibirku beelaha nabdoonbaasu noqonaayo birtoo laysku gowracahayiyo barakac soo jiido lagu baray xawaadley haddaan been la tirinayn alla maxaa barbaartii qabsaday beydka weeraraye tawxiid bayina weeye iyo baab ilaah furaye waa badbaadadiinee dadow haw bukoonnine e badraannimo waxay kugu ridaa bohosha naareede yaan ibliis idiin baaqin waa bele abuurkii alla maxaa barbaartii qabsaday beydka weeraraye tawxiid bayina weeye iyo baab ilaah furaye waa badbaadadiinee dadow haw bukoonnine e badraannimo waxay kugu ridaa bohosha naareede yaan ibliis idiin baaqin waa bele abuurkii